السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد مقعيقو عبد الرحمن آذن محمد كما قاعدير أما لو يقانو هيلية waxaan ka mid ahay mujtamaca Soomaaliyeed ee ku nool wadankan Norway gaar ahaan magaalada Oslo. Waxaan ahay maamulaha iyo milkiilaha shirkadda Hiliya Travel oo ah shirkad si gaar ah loo leeyahay. Waxaan kaloo ka mid ahay ganacsatada ku nool wadankan Norway gaar ahaan magaalada Oslo. Waxaan Norway ku noolaa runtii laga soo bilaabo 2003 ilaa hadda oo qiyaas ahaan lagu qiyaaso ilaa adiga 18 sano meelaha. Runtii waxaan jeclaystay walaalaha Soomaalida ah ee ku nool wadankan Norway inaan la wadaago warbixintaasoo runtii salka ku haysa ama khusaysa baaritaan in muddo ah la soo waday oo hadeertaan alxamdulillah natiijadiisii la gaaray in loo soo bandhigo ama lala wadaago walaalaha Soomaaliyeed ee ku nool wadankan Norway. sidaan ognahay walaalayaal wadankan Norway waxaa ku nool dad ajnabi aad u fara badan ama loo yaqaan dadka soo garootiga ah. dadkaas oo loo kala qaybiyay saddex qaybood oo kala ah Soomaalida, Bakistaanta iyo Carabta. Soomaalida ku nool wadankan Norway waxaa lagu qiyaasaa 40 ilaa 45 kun inta u dhaxaysa inay yihiin. waxaana warbixintan aan soo diyaarinay ku saabsan tahay imtixaanka la xiriiro theory prova. sidaan ognahay qofka markii uu doonayo inuu laysinka qaato wuxuu maraa dhowr dariiq ugu horeeyo waa inuu 18 sano dabcan uu jiro kadibna inuu theory provaha kusoo baaso wixii markaa ka dambeeyana wixii u dhiman uu guda galo. baaritaan la sameeyey baaritaankaas oo runtii aan ka soo xiganay ama laga soo xigtay Statens vegvesen wuxuu sheegayaa sanad kasta in dad tiradooda lagu qiyaasay 142 kun oo qof ay galaan imtixaanka theory prova. waxaa la sheegaa marka 42% inay imtixaanka ku dhacaan sanad walba. baaritaan la sameeyey ayaa waxaa lagu ogaaday in sababta ugu weyn ay tahay dhibaato khusaysa xagga luqadda. tusaale ahaan dadka Soomaalida ah ee wadankan soo galay waxay u kala qaybsamaan dhowr qaybood: dad weynaan ku yimid, dad ku dhashay iyo dad ku koray. dabcan barnaamijkan hadeertaan aan doonay inaan idinla wadaago wuxuu runtii khuseeyaa oo uu gaar u yahay dadka Soomaaliyeed ee fahmaya luqadda aan ku hadlayo. wuxuuse si gaar ah usii khuseeyaa dadka aan fursadda u helin inay inta iskool tagaan luqadda wadanka looga hadlo ay si fiican u bartaan kadibna nolol maalmeedkooda ay ku meel marsadaan. haddii ay doonayaan inay imtixaan galaan inay u fududaato, haddii ay doonayaan inay shaqo raadsadaanna inay u fududaato. sidaas daraaddeed baa walaalayaal waxaan jira niman dhalinyaro oo Soomaaliya oo wadankan ku dhashay qaarkoodna wadankan ku koray oo raba inay u faa'iideeyaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool wadankan Norway. faa'iidadaas oo runtii la xiriirta in dhibaatada haysata oo xagga luqadda ah ay ka haqabtiraan. marka barnaamijkan waxa uu quseeyaa buugga lagu galo imtixaanka theory-ga oo ku qoran luqadda Norwejiga ah inta ugu muhiimsan buugga oo dhan maaha laakiin inta ugu muhiimsan in loo turjumo luqadda afka Soomaaliga ah si qofkii Soomaali ah oo luqadda ay ku adag tahay ee doonaya inuu imtixaanka galo ay ugu fududaato. sidaas daraaddeed maadaama aan leenahay dadka Soomaalida oo dhan uu khuseeyaa dabcan waxaan isleenahay wuxuu si gaar ah u khuseeyaa dumarka Soomaalida ah. taa micnaheedu ma aha dabcan dumarka inay ragga ka liitaan, laakiin waxaa jiro hooyooyin fara badan oo runtii howlkar ah aad u qiimo badan oo shaqaysto oo caqabado badan ay haystaan. haddii laakiin laysinka ay helaan oo kale caqabadahaas ay u fududaan lahaayeen maadaama laga yaabo markii qofka wadanka u yimid
inuu markii fursad uusan u helin inuu inta iskoortaga oo luqad uu barto laakiin uu ku mashquulay ilmihii iyo korintoodii iyo howlo kale sidaas daraadeed baan waxaan rabnaa insha allahu tacaala iyadoo dadka soomaaliyeed oo wadankan ku nool oo dhan ay ka faa'iidaysanayaan in dadka ay si gaara uga faa'iidaystaan si ay nolol maalmeedkooda ay ugu fudaato waxaa kaloo la ogaaday laysinka ama forwardkoodkaba in maantadan aan joogno inuu la mid noqday shahaadada oo kale qofka markuu rabo inuu shaqo raadsado waxa ugu horeeya oo la weydiinayo inay tahay inuu laysinka haysto ama inuu gaari leeyahay qofka dabcan haduusan laysin haysan gaari ma yeelan karo sidaas daraadeed baan insha allahu tacaala waa barnaamij taxano ah oo socon doono oo marba qayb aan soo gudbin doono insha allahu tacaala barnaamijkaasoo aan rajaynayno inay ka faa'iidaystaan mujtamaca soomaaliyeed ee ku nool wadankan norway haddii ilaahay idmo sidaas daraadeed baan waxaan rabnaa insha allahu tacaala walaalaheena soomaaliyeed inaan ka haqabtirno aan oga faa'iideyno wixii aan ku dhaanno barnaamijkan waa barnaamij ay u istaageen niman dhalinyaro ah oo wadankan ku koray wax ku bartay oo dabcan iyagu luuqadda norwejiga si u yaqaanaan aanan u aqoon luuqadda soomaaliga marka waxaa muhiim ah in la helo qof luuqadda soomaaliga ah na yaqaano luuqadda norwejigana fahmayo oo runtii warbixinaha noocan oo kale ah usoo gudbiyo bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankan norway insha allahu tacaala waxaanu samayn doonaa waxaanu soo gelin doonaa youtube-ka waxaan soo gelin doonaa facebooka waxaanu soo gelin doonaa website-ka oo aanu magaciisa aan dib idinkaga soo sheegi doono hadduu ilaah yidhaahdo waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo fi amaan illah wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh